السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل عام وأنتم بخير. سنة كان سنة كيس إلهي بش برواقها نوغو غارسيو. سنة كعصبنا ميد خير لإلهي هنوغر ديغو. وولاشين هدى بنت مختار يا جنال كان هدى بنت مختار هو يجي مرتدى ولا الوحان رباينا هالكي كسي عن بقاضو وعن سوقد بيو qaybtii labaad sheekadeenii xiisaha badneed ee ayaan daran haddii ilaahay yiraahdo haddii aad ka hesho videogeena like ii saar subscribe ii dheh iina share garey gambaleelka taabo si aad ula socoto wax walba oo aan soo gudbiyo insha Allah sheekooyin kaliya kuma ekaanayo barnaamijyo badan aan soo wadaa haddii ilaahay yiraahdo oo kamid yihiin cunto karinta waa isla soconeynaa walaalahayga qaaliga asxaabteyda aada idin salaamaya asli habeenkii oo dhan way soo jeeday subaxnimadiina dugsi ma tagin asli oo isla hadlaysa hadba dhinac isu rogaysa baa hooyadeed u soo gashay oo ku tiri naa asli hooyo waadiga saaka iskuulkii ka baaqday miyaad xanuunsanaysaa heedha indha dheerida xagee laga hayaa hooyo waan iska roonahay bay ugu jawaabtay asli hooyo macaan ma kuu keenaa quraac hooyo saaka wax cunto ah ma rabo asli hooyadeed isla markiiba way garatay in inanteeda u baahan tahay sharaab sidaa darteed waxay u yeedhay kuushi oo ahayd adeegtadii qoyska waxayna u dirtay 2 xabo oo maanga ah markaa kadib inta ay sariirtii kula soo fariisatay asli oo si raxmad leh beerka uga taabatay ayay cambaro weydiisay inanteeda halka laga hayo aslina waxay ugu jawaabtay hooyo caloosha waxba kama qabo waanigii bishii hore dhakhtarka tagay ee igu yiri waxba ma qabtid aw jaamac oo ahaa asli aabaheed baa maqlay doodii markaasuu intuu gurigii soo galay oo cambaro il canaan ka muuqata ku eegay isagoo isla markaana ku foorarsanaya asli gacantana dhabanka ka saaraya ku yiri maxaad iigu sheegi weyday in inanta xanuunsanayso goormaan kuu sheegaa amba iminkaan ka war helaye ayay cambaro ugu jawaabtay aw jaamac intuu gacantii qoorta ka saaray asli buu ku yiri aabba iska waran sidee tahay xagee lagaa hayaa goormuu xanuunka kugu bilowday inantaanay asli jawaabin ayay cambaro duqa u sheegtay xanuunka asli iyo calaamooyinkiisa aw jaamac intuu istaagay buu yiri cambaro anigu shaqadii baan tegayaaye inanta u dadaal oo waxay doonto u samee xaafadihii u dhawaa reer aw jaamac oo dhan ayaa maqlay xanuunka asli oo aad ay isugu dheeraayeen waxay ku soo xoomeen sariirtii asli iyagoo u sheegaya in ay aad uga xun yihiin xanuunka asli ilaahayna ka baryayaan in uu caafiyo markii dadkii waaweynaa ka tageen waxaa ku soo haray hablihii saaxiibadeed ahaa gaar ahaan kuwii ay isku da'da ahaayeen ee ganka dambe dugsiga wada geli jiray asli maalintii dambe aad bay u roonaatay waxay tagtay dugsiga hase yeeshee waxay go'aan ku gaadhay in ay dib dambe ula hadlin canab intii ay sii socotay asli way ganuunacaysay iyadoo hoos kale dhibaatadan oo dhan waxaa ii keenay canab ilaahay waxaan ka ballan qaaday in labadayada midkaayo aakhiro tago bal iyada haddii ay iska quusatay maxay mustaqbalkayga ugu ciyaaraysaa markii ay asli dugsigii gaadhay cid aragta waxaa ugu horeysay canab oo albaabka ku sugaysay si ay uga waraysato wixii habeen hore ay cadaawe kala kulantay intay soo dhawaatay oo salaan u soo taagtay bay ku tiri saaxiib asli iska waran miyaad xanuunsanaysaa maxaad shalay dugsiga u imaan weyday asli salaantii kama ay qaadin canab waxay u foorarsatay in ay kabteeda siibato si ay ugu dhirbaaxdo canab hase yeeshee waxaa ka hor yimid macalinkoodii Cismaan Fanax intuu salaamay oo gacmaha qabtay ku yiri ina keena maxaa idin taagay dugsigii waa la galay asli iyo canab galaaskii ayay galeen xiisadii ugu horeysay oo ay lahaayeen waxay ahayd xisaab asli lama socon waxa la dhigayo oo waayo waxa joogay muuqaalkii iyo falkii foosha xumaa ee habeen hore dhacay waxaana ku soo duxanayay karaahiyo iyo ciil ay u qabto canab markii xiisadii dhamaatay asli oo isku buuqsan baa maamulihii fasax ka qaadatay oo waxay tagtay gurigoodii waxay xaaladu hadba heer soo ahaato 2 bilood kadib asli aad ayay u xanuunsatay waxaana la dhigay qaybta bukaanka ee isbitaalka guud ee Digfaar inkastoo uu jiray amar ah in xilliyada qaarkood aan isbitaalka la imaan karin haddana waqti walba waxaa dul joogay asli saaxiibadeed dugsiga iyo kuwa xaafada oo dhammaan hadiyado kala duwan u keenayay markii miisaskii qaadi waayeen hadiyadaha kala duwan ayaa dhulka la daadiyay dadkii xanuunsanayay ee isbitaalka ku jirayna loo qaybiyay
dhakhtar Jimcaale oo madax u ahaa qaybta waxaa ka yaabiyay sida gabadha yar loo jecel yahay ee maalin iyo habeen aan looga faaruqin qolkeeda. Aw Jaamac iyo Cambaro Digfer wuxuu u noqday gurigoodii markii 2 toddobaad ay ku jirtay Asli cisbitaalka oo la garan waayay xanuunka haya. Ugu dambeyntii shaybaarka cadeeyay in uur 2 bilood iyo badh ah leedahay, sidaa darteed aroortii Asli oo kaligeed ah ayaa waxa u soo galay dhakhtar Jimcaale wuxuuna ku yiri Asliyay haddii aad socon karto iigu kaale xafiiska baadhitaanka. Asli isla markii intay xeydatay ayay u tagtay dhakhtarkii waxaana dhaxmartay su'aalaha iyo jawaabaha soo socda. Asliyay nin ma leedahay? Maya nin ma lihi. Saaxiibna ma lihi. Run ii sheeg dhakhtarkaaga waxba lagama qariye. Adeer wallaahi waa runtay waxba ka qarin maayo, nin iyo saaxiib midna ma lihi. dhakhtarkii warqadihii baadhitaanka ayuu soo saaray wuxuuna aad u eegay warqadihii mid ka mid ah waxaana wajigiisa ku soo joogsaday dhidid aan caadi ahayn. Markaasuu intuu soo eegay Asli ku yiri hadda sidee tahay iminka? Waan iska roonahay digtore ayay ku warcelisay. Asliyay xanuunada sida aad og tahayba way kala leeyihiin, sidaa darteed maanta iyo wixii ka dambeeyay waxaa lagu wareejinayaa ginekoloojiyada, waa qaybta haweenka. Ereygaas dhakhtarkii markuu ka soo baxayay qaracan iyo naxdin darteed ayuu hadalkii ka soo bixi waayay Asli waxaana indhaheeda ka soo booday ilmo xoog lahoo qoysay shalmadeeda.